السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سليمان يوسف حسن وكم قاعد أبو مقانصو. halkan waxaan kula wadaagayaa tixi gabaya oo kooban oo magaciisa la yiraahdo Doomayd oo aan ka qayb qaatay silsiladii dardaaran ee abooninta faraha badan la ka qayb qaatay waa gabayga labadan ka qayb qaatay waxaanu jawaab u noqonayaa gabay uu soo tiriyay saaxiibkii aboontajiye waxaanu ku bilaab macnihiisana halkan ka dhex garan doontaan waxaanu ku bilaabmayaa sidan la socod fiican daadan gabayga dood baan ku furo waan dacweeyay deer qaafna kuma tirinay iyo duriyo ceebaal nin dardaaran soo galay dhammaan waan u digayaa niman baa daluun dheer qodaan deer ku soo xidhin niman baa dushaamil ka dhayaan daawo laasimin daajiyaanu mahmaahaya dan iyo xeeshii intuu daar quraarada galuu daydayaa dhagaxe isagoo duduwa meedhayuu ila dadaalayay dal kale uu heemay haddaan duruco ka faalloodo ninkii dabadu haajiray dhammaan nimaan ka diraynin waxaa dalkeenii ka dhigay daahiriyaa shamis waxaa dalkeenii ka dhigay daahiriyaa shamis aqal duqun u taagtuu noqday ridaan dabayluuye haddaan dayirka xoolaha dhul badan oo dal lagu daahin duwaa guba halkii jilicsan buu dirar ku qaadaaye ducaa ina bannaan baan arkaa daaqadaa furane durbaan baa lagu tumay meel aadaasadaan jirin qaar horoo dabeel raacay baa diib nasiibsadee qaar baan dib loo arag siday daguba fuuleene qaar baa dariiqyadii ku gaay diiftii gaajade qaar baa dushaa laga rartaa sida dameeraaye waalidkii dirida seexday ee daaraha u iibshay ee la yidhi dalluunba ku dhacaa waa la doorsamay soomaali way dabar gadoo dhimay haldoorkii dayarta ha maqashin waxay lagu ridiidaan marka halkaas isagaa gabaygiisa ay ku jirtay waraamay doorta ama aynu doontooda fullo oo meesha ka tahriibno migrants dayarta ha maqashin waxay lagu ridiidaane dur joogu weysku heshataa kala dir weeyaan dushaa geela laga wada jirtaa waana kala dayr dowladuhuna deris bay noqdeen kala dab qaataan dayax dhacay habeen daaha rooy duni madoobaatay xidigaha dareenka iyo ifkaa darar ku dhaaftaaye dayra dhaafka jiilaal adoo dhaxan daliiliyooday dal aan geed lahayn iyo gabbood dacalka aasaartid dabaqtiyey marbaad u heshataa damba iskulaashaaye nimuu daadla soo tegay xubay dani u geysaa diinkuna dhashiisa ku koray daymada indhaa adiguna dalkaagigu umaad diiday leedahay oo waxaan marnaba iga degayn duhur dharaareede bal dadkaa u sheeg daajiyo darood leh afartaa da-da iyo wowga iyo deelmarka higaajiyey ma daleeyay waataan murtidan daaci ka ahaaye dan inaan ka taliyaan rabaa duxii raandhiis caanadaatii dabadood la qabay yaan u dur xuli wadaan biyo dul heehaabaysaan dooji leeyahay dalag baan ku beeraa afkanoo diri haadshaa dacartaa qadhaadh baan lahaa malabka deecaan dabiib baan u raadsaa dadkaa dawo waan heli shay kastoo dadaalaa marbuu darajo gaadhaa dalkan hooyo joog baan lahaa daayin abidka adiguna waxaan diidanahaa dabada haysaaye adoo dooxaan orod lama damcee duubashaa wacane daaraanta kugu taal hadday dabaqda guudkaaga inaan gaal dabiib laga helayn dib u xasuusnaada dayac bay ku raagtay haddaan daaqsin lagu foofshin inaan doobi loo soo qolayn dib u xasuusnaada doqoniina weeyaan waxaan daawo loo helayni haddii aan dadaal aada iyo daacadnimo muuqan inaan dabad wax laga soo tarayn dib u xasuusnaada dariiqii rasuulka iyo haddaan diinta lagu weeran oo aan daayin laga wada cabsoon dunida koomkeeda inaan daarta kale lagu ladayn dib u xasuusnaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.